هذا عملك صالحة أو السمين يسد قلبي جاجا أتكويد إنه كرة حيسنيو أو وحويان قلبي جاجا وكوك بوبا يهدات كويدي عمل كاته ميسو عمل كاسي عمل صح معها محايا لإلهي وشكور الدومدي سوسي صالحة هدي لي مادان إلهي أقبل وكأمال مريا أمال مرينت إلهي أدونك وكأمال مرينا ينوحويان حلاوة معان إلهي قفك قلبي صدقها يا إلهي كأمال مرينا هذه مركز لوايا عمل كأسوأ الله سمعين أيوه وح قلبي تشليعه هدي لوايو أو دقنا قلبي قال لوايو أو قفك قلبي يسو خشوعي وايو عمل كاسا وحكو شيران ميل بالغا سو غلي عمل نظيفة وإلهي أكتيس لغا أقبلي بونا هين عمل كاتوميسو أحد العلماء بسؤال ويديه وحاليني متى يفقد المرء لذة العبادة إذا وقع في المعصية أو فرغ منها قورمي قفكو وايا عبادة معان كذا ما مركو معاصيده كدعو ومركب معانك عبادة وايا مسويه وايا مركو معاصيد انتو كدعو دميستو كفاروقه او نكتوبت كينين بو معانك وايا مركا سوري يفقد لذة العبادة إذا هم بالمعصية قفكو وحو وايا عبادة معان كذا انتو كدعو انتو كفاروقه منا معها مركو معاصي قوان صدا انو قلو oo qalbigiisu go'aanka uu gaaro oo uu hamiyo ayuu macaanki cibaadada waaya uquwadu markaas ay ku bilaabanayso arinka afraadi waxa uu saddexaad waxa weeye oo cibaadada dareen inay ku yeelato kuugu kaalmeynaya tarku fuduli al-ta'ami wash-sharabi wal-kalam qofku inuu ka tago hadalka dheeraadka ah oo aan maslaxad ku jirin cunada ziyaadada ah cabitaanka ziyaadada ah hurdada ziyaadada ah qofku inuu ka tago أرنكا إسقى قفك مؤمن كوحى أهبان إنه كجاب صده عنده إيا عبيتانك وحى عبادة إلهي وكوج جدنا هيو أنت عبادة إلهي وكوج جدنا هيو إنه كجاب صده يا أهبان ولذلك إلهي يقول لي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين عنا أو عبها نحد جد بيننا محيي إلهي كوا حد جد بإلهي ما شاء الله النبي قلنا وحي صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن ابن آدم بني آدم مبوحيان وحك الشربضا ويل كالشربضا علاش ويل علاشا كالشربضا قف بني آدم مبوحيه مركز النبي يقول بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ابن آدم وحاكفلا لقمضير أكلات واللقموين وقاضه يقمن صلبه أو دبر كيس التوسين هي سوء عبادة إلهي يقول حوجيست هدون اللقمة داس قاضا وسوء جدنا يا واسكت هي عبادة مجودن كم ابن آدم مركا وحاب كفلا دور كان لقمة وقاضيه أو دبر كيس وكتوسين هي سوء عبادة إلهي يقول تاجنا له قلت على الوحكة شربنا بني آدم بوحيان maxaa qofku markuu dhergo aqligiisu waa daciifaya oo fiirsada dadka dheregta joogtada dhergaa aqligoodu waa daciif maxaa aqligoodu daciif ku yahay dareenka qofka baahan ma dareemaan nin baa lagu yiri dadkaasi gaajo u baaba'ahaya baa laga sheegay markaas wuxuu yiri oo haday gaajo ka sii duruuf kasta ay soo martay xabad rootiyo iyo koob caano isku cunaan macbaan ma waayeen intaasna qofku markuu dheregsan yahay wuxuu qabaa dadkoo dhan inay dheregsan yihiin qofku markuu dhergo waxa way dareenkaas ku yaraanaya kibirka iyo qooqa ayaa ku ziyaadaya isla weyn ayaa ku ziyaadaya markaas wuxuu noqonayaa waxa ugu badan oo shar ah oo buuxiyay weelkaas caloosha uu noqonaya marka qofku inuu yareeyo cabitaankiisa iyo cunadiisa oo xaajadiisu intay kaga oofsanayso cibaado ilaahay uu ku gudanayo inuu ku gaabsado مركز النبي وحيد عليه الصلاة والسلام فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي هذا يبقى قصبتا إنه وحعنا هيو صدح أو قيبي علاش قيبها كدقى عنيد قيبنا عبيتان قيبنا هؤرب نفسك أي نفسنا يسهؤرب ولذلك أهل العلم وحي هذين راحة القلب في قلة الآثام قلبك الراحة دي سوحي كجرتا دنبغا oo la yareeyo
qalbigu waa raaxaysanaya qofku markuu dambiga ilaahay agtiisa uu ka galay uu yar yahay qalbigiisu waa raaxaysanaya waraaxatu lbatni fii qilati aطacaam caloosha raaxadeedu waxa weeyaan yaraynta la yareeyo cunnada waraaxatu lisaan fii qilati اlkalaam carabka raaxaysigiisuna waa hadalkiisa oo laga yareeyo hadalka la yaraynayo oo carabka la leeyahay ha laga yareeyo waa hadalka aan ajar iyo xasanaad midna lagaaga qorahayn ama dembi lagaaga qorahayo iska jooji kaas midka xasanaadku kuu soconayo lagaaga qorahayo hadday tahay qur'aanka hadday tahay dikriga ilaahay hadday tahay al-amru bil ma'ruf hadday tahay al-amru bis sadaqa midka isaga badi inta aawadi kartid maxaa yeelay xasanaad iyo ajar baa kuu soconaya ilaahay agtiisa arinka afraad oo cibaadada macaankeeda kuu sahlayo kuu keenayo waxa weeyaan an yastahdira al-'abdu anna ma yaqumu bihi min al-'ibadat la tadii'u wa la tafna in qofku soo xaadirsado oo uu dareemo oo uu qalbigiisa ugu sheekeeyo cibaadooyinkan uu gudanayo iyo salaadan iyo soonkan iyo sadaqadan iyo wanaagan iyo khayrkan uu samaynayo inaysan dayacmahayn oo aysan dhammaanahayn kama tafna kunuuzu dunya wa amwaaluha wa ladatuha sida adduunyada kaydkeedu u dhammaanayo oo maalkeedu u dhammaanayo oo macmacaankeedu u dhammaanayo acmaashaan inaysan u dhammaanahayn waa inaa qalbiga ku soo xaadirisaa bal yajiduha alcabdu fii yowmin axwaja maa yakuunu ilayh wuxuu helayaa oo ku xisaabtamayaa inuu u baxsan doono maalin aan maal waxba tarahayn awlaadna aynan waxba tarahayn qaraabana aynan waxba tarahayn oo wax uu haysta aan la arag inuu maalinkaa u baxsado oo maalinkaa uu u baxsanayo oo wax yar oo khayri uunan ka dayacmahayn waa inuu qalbigiisa arrinkaa ku soo xaadiriya maalin baa sugahaya inta kale way dhammaanayaan ninkee adduunyada ka tegoo maalkiisa qaatay aawa raggii maalqabeennada ahaa oo hebel ahaa oo annagoo xoolo haysanin oo aan waxba haysanin oo aan magac lahayn ayagu magaca lahaa annagoo mansab iyo xilya midna aan haysanin ayagu mansab iyo madax ahaa ayagoo kuwaani aynan talinahayn ayagu talinahayeen meelihii ay fariisan jireen weli waa la fadhiistaa raggay saaxiibbada la ahaadeen waa la yaqaanaa hantidii ayagu ay maalgeliyeen oo ay dhiseen waa la harsadaa oo waa la joogaa waddooyinkii ay mari jireen waa la maraa geedihii ay ka talin jireen rag baa joogoo beddeloo ka taliya aawa raggaasi way tageen maracad oo karfana bay ka qaateen wax raacayna ma aanan arag nin miyaan aragna daarihiisu ay raaceen gawaaridiisu ay raacday ahalkiisa iyo carruurtiisu ay raaceen ma aanan arag inay dhinteen waa la maqlay waa la og yahay wax marka la isku yimaado warkooda soo qaadayana ma leh awalna waxay ahaayeen rag habeen iyo maalin arrimahooda laga sheekaynayo oo magacoodu suuqa ka shidan yahay oo ganacsigooda loogu imaanayo oo talinayo oo maamulaya ahaadeen halkaas ayay ku dhammaadeen meel dheerna maynan degin deris bayna leeyihiin camalkan aad samaynaysid markaad og tahay xaaladdaasi markay ku soo martay inaad u baxsanaysid oo halkaa kula gelayo oo uu kula soo baxahayo oo jidka siraadka aad ku malaysid oo maanta ugu baahi badan tahay oo kayd aad maashid uu ku noqonahayo sidaa markaa qalbiga u soo xaadirisid cibaadadu ku macaanaanaysa camalkaasi wuu kula macaanaanaya waxaadna ku didaalaysaa inaad sugtid baa ku didaalaysa walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay yacmal min الصaalixaati wahuwa mu'min falaa yakhaafu ظulman walaa hadma qofkii sameeya camal saalixa asagoo mu'min ah ka baqi mahayo in laga nuqsaamiyo iyo in la dulmiyo midna ka baqi mahayo nuqsaan yar inay ku timaadda ha ka baqin haddii ilaahay kuu aqbalay oo camalkaas lagu diiwaan geliyey weligiis kaa nuqsaami mahayo duugoobi mahayo khasaarina mahayo khasaaro dambe oga baqi maysid bangi ilaahay buu kugu dhacay walidaalika nebigeennuna wuxuu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam daaqa طacma aliimaan iimaanka dhadhankiisa macaankiisa waxaa dhadhamiyey man radya billaahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا صدح قفك هلا إيمانك معانك سواد دمي قفك استقع من رضي بالله ربا قفك إلهي رب النماء وقرر على النقضة عدك لأن ربي معبود كدقا إلهي بكو كافتون عدك لأباها يا بجرت إلهي بو رب النماء وقري
أسقو الرميسية هي إنه أبو ري أرزاق أيوه عبادتنا أسقو كلية أي الرميسية وبالإسلام دينا دين إسلام كان الرالب وإسلام كوحو أقول نقض الدين أهان دين كلام أقلا وحكى وقت كل من مهيو إسلامكو إلى شنيا وأنا كتاب كاي السنة داس سيدي أسود دجين وحلا جاب بدلي كرقان لارك dad baa waxay u hanqaltaagayaan dhaqamada gaalada inay qaataan bal inay horumar ku gaaraan iimaanka macaankiisa weynaan haysanin kuwa ilmahoodii gaaladii u geynahaya adduunyay la raadinayaan wixii ugu macaanaa oo iimaankii ah bay ka kaxaynayaan oo ay ka fogeynayaan markuu meeshii tago iskuulkii wuxuu la dhiganayaa gaalo wax u dhigahaya gaalo hadalka lagu hadlayaa waa kufriyaad dalaalaad iyo baadi baa lagu hadlayaa asaguna habeenkii wuxuu isku dayayaa inuu yiraahdo ciise ilaah ma ahan ilaahay ba ilaah ah saakana waxa loo soo dhigay iskuulkii ciise waa ilaah baa loo soo dhigay ilmaha saqiirka inta leeg aabaha kaxeeyay oo geeyay muxuu ka kaxeeyay muxuu see u geeyay wuxuu ka kaxeeyay wax adduunyada aan suuqa laga soo iibsan karin ilaahay inuu ku siiyo mooyaan dhaqaale aan lagu heli karin waa iimaan waa amalkii saalix ahaa waa meeshii muslimiintu ay joogeen waa meeshii cibaadada iyo khayrku u yaalay ayuu ka kaxay waa la haajiray wuxuu la raadiyay nolol adduunyo markaas ay hadhowta asaga iyo farabanaan baa soo laabanaya oo marada bitinayo gacanta taagayo oranahaya ilmihii waan ka soo tagay waxay soo raacawaan waay wiil baan keenado ayaan ba halka ku hayo waa carro wuu laabtay dib dambe waa u soo laaban diiday aniguna meeshii waxa weeyaan nolol dambe iyo joogis iima leh uu soo laabanaya hadday badbaadaan kuwa aad dhashay oo ageysi kuwa ay ku dhaleen meesha ma badbaadayaan luqadoodii waa bedelan tahay dhaqankoodii way bedelan yihiin deegaankoodii waa bedelan yahay dariskoodii waa bedelan yahay wixii ay ka caado yeesheen oo ay ku dhasheen oo ku koreen waxa ahayn ma aqbali karaan meesha ay joogaan wadan muslim ma aha waxa weeyaan ilmaha noocaas ah waalidkaas ilaahay hortiisa waa la weydiinaya waa la su'aalay yaan laga kaxayn khayrka iyo iimaanka iyo macaanka xalaawada iimaanku uu leeyahay yaan laga kaxayn الحياة الطيبة أي هايستان هذا إلهي يقانان سبحانه وتعالى أرنك الله باسد حالي وحويان وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبمحمد صلى الله عليه وسلم الرسول أقر النبي محمد إنه رسول الله إياه وقرأ على النقضة وحو إلهي رب النبي وقرأ على النقضة دين أهان مركل إلى هذا إسلام نمر عليك يا بس نبي محمد عليه الصلاة والسلام رسول إلهي أصدر إنه يهي أيو قرأ على النقضة قفك كواسي قلبيسا أي كلمان إيمانك معانكيسا أيو ددمي وإنه مركا كد دالنا سيدي إيمانك إنه أزيادي لها قرآنك آخر سكيسا استغفارك يا توبتكانك صدقات يا خيرك إن الله بحنه أريك وين آدي أدو قد دالنا